casho sharaf aad u qurux badan ayna soo qaban qaabiyeen maamulka ururka Iftiin Shukri Siciid iyo Raaxa Geesay iyo maamulka Puntland Axmed Cabdi iyo Xasan Ashkir ayaa lagu martiqaaday wasiirada ganacsiga Puntland dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo wadanka Holland u joogay shirar looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya kulanka cashada ay hadallo kooban ka jeediyeen wasiirada ayay mahadcelin kadib waxay sheegeen in qurba joogta rabta in dalka ay maal gashadaan loo sameyn doono cashuur dhaaf loona raadin doono dhul ay ganacsigooda ku bilaabaan يعني رجل لما مودي كان انه انا يرجع انا وين الدين بين وقتها سيدنا لو سو انه سو وين وحن نقول ساعه خلق قال لي نقول ساعه عمره كان موضوع كنا عشان ان شاء الله تعالى انا جايني هاي فرحب لك وكما علينا ومركي لبعض هاي الآن صريتوا عالي وبرد عالي وسنتع هذا كانوا خلاص وولد مكان احنا توسيسا ضد كلينا نقول ضد شهور الحمد لله وتزنوا حكينا هاي والنور شباب وحنا بارك الله فيك الله يبارك يعني في الكفر السبعه عشان لا يركع صورة يعينا نتيجة وفيتا واحد صورة نجسة فيتا نقول له يدين هذه وما دام ما الجليس غير سام وانت صوقف للشقيق قليلي والشقاء والدرام وواحد من السندلية نقول كنا اللي بلاد هذه تاسنا واشتغلنا وتعالى ورمتي لنا يدوار وحنا نكعد سنة يا مركا هنا سولواتات وتكتماتات ايكتان وصلها شقية لك فكرتان waxaan kama helinayaa isku duubnida in ka muuqata reer Holland haddii Soomaaliya ay u burto kala qaybsanaan haddii waddan ay jiraan jaa'idu ku ka badqabtaan meeshii ay taagantiin 60kii ilaa 90 iyo xoolaagii هذه أبنية الكلام إسكندرية إن هذا أما هيئة شراكة كتير أما جناح سأكون شركودان إذا كاسف في رقبة النقطة فهذا كهذا عن سياسيين تيجي أكفل إزاي وقدام بينتينا قبل قابياشي عشان شرفته يمرت الشرف كلا أو كهذا شيء دمان تتشيعي إني أدو فرحسينهن إن وسيرة موجين إن دتك الصومالية تشران واحد بدن أي وده قيب سنكران هذا الله ذودينا وحاكم إذا Soomaaliya ee ganacsiga wasiirka dawladda Soomaaliya federaalka iyo wasiirka ganacsiga Puntland iyo wasiirka ganacsiga ee Somaliland waxaan aad ugu faraxsanahay ayagoo isla socda oo halkaan ka wada qayb qaatay barnaamij horumarin ah oo wadankii ganacsi lagu soo kordhinayo dadkii qurba joogta ahaa oo rabay inay wadanka ganacsi u tagaan iyo dadkii investorska ahaa ama Dutch investorska ahaa oo rabay wadanka inay maalgashadaan ayagoo shirar badan kala qayb qaatay dawladda waa wax horumar ah aad baan ugu faraxsanahay maanta inay halkaan ku soo booqdeen wasiirka ganacsiga Puntland Soomaaliya waxay u imaadeen inay ka hadlaan ganacsiga iyo sidii loo horumarin lahaa ganacsiga wadankeena aad baan ugu soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay diaspora aad waxaan ka imi haddana aan u guuray Soomaaliya Puntland Garowe waxaan halkaas ka abuuray business